halka ay heerka ay marayso ama heerka ay taagan tahay qisada bal ila daawo saxaabada nabiga markaa fadlan please isku day muuqaalkan inaad dhammaysato run ahaantii muuqaalkan intaan muuqaala sameynay waa muuqaalkii iigu saameynta badnaa iigana duwanaa fadlan please haddii aad tahay qof muslina oo iimaan leh oo ilaahay ka baqanaya oo naxariis leh fadlan isku day inaad muuqaalkan dhammaysato ay u baahan tahay marka waxay u baahan tahay waxa weeye maanta waa gargaar weeye waana dhakhtar dibadeed halkan dee waxay u taallaa dee waxa weeyaan waa waxay ku sugaysaa ilaahay inuu farashka ugu keeno. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta qaaliga meel kasta adduunka ka joogtaan aad baan idin salaamayaa runaantii waxaa inoo soo dhow ama food inagu soo leh ramadaantii oo bishii barakaysnayd oo bishii cibaadada oo bishii khayrka iyo wanaagga badnayd runtii bishanna wax kasta oo wanaag oo aad samaysaa way ka duwan tahay bilaha kale wanaagga aad samayso sababtaa mar haddii liba jibaaranto haddii ka khayr badnaato haddii ka fadli badnaato intaba bishani bilaha kale way ka khayr badan tahay saynu wada ognahay waana ka fadli badan tahay muuqaalkan waxaa hadda aan duubayaa ramadaan iyadoon la gaadhin ayaan duubayaa balse laakiin kolley waa laga yaabaa muuqaalkan inaad aan soo geliyo iyadoo ramadaan ay tahay ama aada ramadaan daawanayso waxbayn hadda kaydin ku daalin sad halkan ka wada arkayseen ama tamlilka ama ciwaanka aad kasoo raacdayba muuqaalkan waa muuqaalada inta aan arkay oo dhan iga wada duwan run ahaantii dareenkaygana bedelay taas macnaheeduna ay tahay in muuqaalkan aan jeclaystay inaan la wadaago dadka aadka iyo aadka u wanaagsan leh ee halkan aanu ku midownay ama aanu ku bahaysanahay dadkaasoo aan maanta aaminsanahay haddii ay bahay timaado inay caawimaad fidinayaan weliba ta ugu wanaagsan in gacan wanaagsan ay ku qabanayaan waxaan jeclaan lahaa inaad muuqaalka ila daawato muuqaalka waxaanu leeyahay sida tan waa xamde ibraahin oo muddo sannada u xanuunsanaysa xanuunka kansarka kaasi oo kaga dhacay madaxa dhakhaatiirtu waxa ay sheegeen inaan waxba lagaga qaban karin waddanka gudihiisa balse wax lagaga qaban karo dalka dibaddiisa xanuunkan kansarka ee haya xamde ibraahin waa mid sii fidaya marba marka ka dambaysa waxaa walaalaha islaamka meel kasta ay joogaan laga codsanayaa inay soo caawiyaan xamde ibraahin oo ku xanuunsanaysa magaalada hargeysa markaa xamde imika muddo sannada ayuu xanuunkani hayey muddada dee marba mar ka dambaysa wuu sii fidayey maantana waxaynu arkayna halku marayo haddii aan dee gargaar deg degana aan la soo gaadhsiina waxa weeyaan inuu sii fido oo halkaa ka sii fido ayaa ay u badan tahay waxaa intaa u dheer in dhiigga laftigiisa dee muddooda malaa dhowrkii cishaba mar laga bedelayo amba lagu shubayo oo dhiiggii dee xitaa ay u baahan tahay marka waxay u baahan tahay waxa weye maanta waa gargaar weeye waana dhakhtar dibadeed halkan dee waxay u taallaa dee waxa weeyaan waa waxay ku sugaysaa ilaahay inuu farashka ugu keeno ummadda islaamkaa markaa waxaan leenahay kolley waxaa la geeyey mar etoobiya la geeyey laakiin de nabarku intan wuu ka yaraa adigu markii dambe celinteedii dambena waa la tahli waayey taasaa keentay in xanuunku halkaa uu gaadho maantana dee waa taasoo xamdi innagay inaga baahan tahay gargaar deg dega gargaarka ilaahay baa haya laakiin inaguna aynu noqono sabab aynu maaragtay inantaasi xanuunka aynu dee insha allah aynu halkii lagu daweyn karaba inaynu gaadhsiino bulshadana waxaan leeyahay arrinkani maaha mid la sugi karo amba wakhti qaadan kara waa mid emergency weeye waa deg deg waayo habeen walba waxbaa ku biiraya marka inaynu ka gaadhno ayaa daruuriya marka waxaan leeyahay faacilu khayrka amba dadka dee muxsiniinta ah meel kasta ha joogaane dibad iyo gude intaba waxaanu leenahay xamdiinagayna sugaysaa ha loo soo gargaaro insha allah haddii laydhaa kolley halka waxaad arkaysaan in hooyadeed aanay nala joogin dibadday taagan tahay sababtuna waxa weeyaan inay hadalba cabiri kartaba hawsha taalla iyo waxaa taalla iyo iga raallihada dhammaantiin asxaabta qaaliga muuqaalka waxaan u kala jaray runaantii qof kasta oo dareen qalbina la damiirna leh inuu damqanayo ayaan ogahay sidaan aniguba uga damqaday muuqaalkan runtii muuqaalkan waa muuqaal yacni aada iyo aada ku qiiro gelinaya aada iyo aad yani aada iyo aad xaadda jirkaaga ku taalla u kicinaya taas ay macnaheedu tahay inaad yacni dareemayso naxariis iyo inaad dareemayso yacni in ay xanuun tahay sidan oo kale runtii bal kasoo qaad ilaahay baan kugu dhaarshay qof adiga kuu dhow haddaad wiil tahay daawanayso bal kasoo qaad inay walaasha kaa yar tahay inay walaasha kaa weyn tahay kasoo qaad haddaad gabarh tahay inay tahay gabarh kula dhalatay oo walaashaya kasoo qaad haddii aad waali tahay ama aad qof weyn tahay ilma aad dhashay oo kale kasoo qaad ilaahay baan kugu dhaarshay maxaad samayn lahayd
wax kasta oo aad isku dayda inaad awoodo ayaad sameyn lahayd oo aad ku caawin karto. qofna maanta ma awoodo xitaa qofkiisa ah inuu dee qofkaasoo baahan uu baahi tiri waayo ama wuxuu qabto, bal ilaah baa idinku dhaarshay qiimeeya ilmahan ama gabadhan yar madaxeeda qiimeeya siduu yahay. waxaa jirta wax adiga lagaga baahan yahay, waxaasina ay tahay caawimaad, balse waxaa jira dad idaawanaya oo aniga muuqaalkayganu soo gaadhayo, dadkaas laakiin ay yihiin dad aan awoodin in xitaa $1 ba lacag ugu yar, $1 xitaa waa laga yaryahay $1 lacag ka yar xitaa aan awoodin inay ku bixiyaan, oo ay kamid yihiin dhalinyar daawanayso waxba haysan, ay kamid yihiin dad aan xitaa sidoodaba lacag u haysan laakiin muuqaalkanu soo gaadhay ama daawanaya. keliya dadkaas maanta waxaan anigu ka codsanaya inay usoo duceeyaan, waayo ducaduba mararka qaar way kacdaa. waxaa laga yaabaa ducadaada in lagu aqbalo adoo gacmaha kor u taago yidhahda ilaahay inantaa yar caafimaad sareecana si degdeg oo sii. ilaahay cid ka awood badan ma jirto, ilaahay cid ka naxariis badanna ma jirto. ilaahay isagaa ummadiisa isku wada eegaya, ilaahay isagaa isku wada eegaya inay isku naxariistaan. ilaahay qur-aankiisa marar badan waxa uu ku yidhi adiguba waad ogtahay. runtii aniga muuqaalkan markii aan daawaday waxaa fikrad ahaan igu soo dhacday inaan muuqaalkan soo baahiyo, aan idinkana idinku baahiyo. runtii badana waxaa la idhahdaa sadaqada aad bixinaysa gacantaada midig bixinaysa, taada bidix yaanay ogaanin. taasna macnaheedu waxay noqon kartaa in sadaqada aynu bixinayna aanay naga noqonin istusnimo iyo anigu intaasaan bixiyay. maanta anigu sahib ahaana dee ma ogaan kartaan inaan lacag ka bixiyey ama aan u diray ama aanan uba bixinba, ma ogaan kartaan. sababtoo ah qof kastaana waxaa qurux badan sadaqada iyo waxa uu la baxayo inuu qarsado. maanta adigu haddii lambarka halkan ku qoran aad kusoo dirto wax allaala iyo waxaad awoodo, dee cid ku ogaanaysa ma jirto, balse laakiin waxa ilaahay uu kugu daraya miisaanka xasanaadka. waxay ku anfici doontaa maalin aad u baahan tahay bay ku anfici doontaa, waxay ku anfici doontaa maalin aad si weyn u rabta ayay ku anfici doontaa. sidoo kale maalinka qiyaame waxay kuu noqon doontaa runtii wax aada iyo aada u weyn oo aanad malaysan karin. sidoo kale waxay aada u caawinaysaa gabadha yar ee xanuunsanaysa ee caafimaadkeedii uu kala dhiman yahay, ee xanuunka kansarka ee aada iyo aadka u xun uu hayo. sida uu warku ama muuqaalku ina soo gaadhayo waxa uu sheegaya 1 sano inuu xanuunkani hayay. bal ilaah baan kugu dhaarshay qiimeyso oo qiimee qof 1 sano xanuunka la ildaran, lana jiifo, lana buka, meel kastana la geeyey, lana awoodi waayo in la bixiyo. dhammaan ummadda Soomaaliyeed, ummadda muslimiinta meel kastay joogaan, anigu uma malaynayo qof gaalo oo bilaa iimaana oo kaafira inuu idaawanayo, uma malaynayo, xaashaa lilah. waxaan wada ogahay qof kasta oo muslina oo iimaan leh inuu halkan iga daawanayo. runtiina haddaynu Soomaalina waxaan ognahay qof kasta qofkiisa kale Soomaaliga inuu caawiyo. Soomaalinimo xitaa marka laga imaado waxaa jirta islaamnimo, diin quraynu haysanaa, dad muslimiinaynu nahay, dad islaama baynu nahay. 5 tiir ee islaamka, 5 tiir ee islaamkuba uu ku taagan yahay waxaa ku jirta sakada ku jirta. sakadu haddaba maxay ahayd? sakadu waa sadaqadii, sakadu waa isla sadaqadii. sadaqad la baxaysa, sakad la baxaysa, sakad bixinaysa, sakadu midnoo mid lagu leeyay oo waajibka waa midnoo mid la baxayso. tanna sadaqadii un bay soo hoos galaysaa. marka please waxaan kaa codsanayaa haddii aad Hargeysa joogto, haddii aad gobolada Somaliland joogto, haddii aad gobolada Soomaaliya joogto, haddii aad gobolada Puntland joogto, meel kasta oo ay Soomaali degto aad joogto, waxaan kaa codsanayaa waa intii Soomaali, waa intii dhulka hooyo joogtay. fadlan please 500 shilin, 1000 shilin, $1, $50, 25 senti, wax allaala iyo waxaad awoodo oo saadaada maanta ku jirta oo adigana khayr ku noqoto, oo adigana faa'iido ku noqoto, oo maalinaad aada ugu baahan tahay ku anfacda. fadlan please ku dir lambarkan oo ku caawi walaashaada baahan ee u baahan maanta xanuunkaana la ildara. runtii waxaan hubaa adiguba haddii aad sidaa noqon lahayd ama aad sidaa ahaan lahayd in aad heli lahayd caawimaad, weliba caawimaadta ugu badan aad heli lahayd. marka waxaan kaa codsanayaa inaad caawiso. waxaan kaloo hadal cod dheer aan u dirayaa dadka jooga dalka dibadiisa jooga, hadday noqoto Yurub, hadday noqoto wadamada kale, iyagana waxaan af dheer ugu sheegayaa war haddii aad Yurub joogto maanta $50 ama $10 waxa laga yaabaa koob shaah inaad ka cabto. $50 waxa laga yaabaa haddii aad suuqa ugu baxday inaad $100 haddaad la baxday inaad $100 soo noqon baa laga yaabaa, oo 2 maryo soo sisto ama waxaad cunto kaliya aad soo siisto. Hargeysa ama dhulka hooyo marka laga hadlayana $50 lacag bay ka tahay. haddii aad isku daydo $1 xitaa ilaahay ka yara haddii aad kusoo dirto Dar es Salaam Bank ama lambarka saad ee halkaa kaaga muuqda, in uu ilaahay mar uun kaa jazaa'id siinayo, uu ilaahay kaa abaal marin doono ayaan hubaa.
sadaqadu maanta waan ognahay halka ay naga taagan tahay. Intaan hadalkayga sii wadan waxaan aad u jeclaystay qiso aad iyo aad kula yaab gelinaysa inaan kula wadaago. bal fadlan qisadan commentiga nagula wadaag oo wax ka dhe yacni faalle bal halka ay heerka ay maraysa ama heerka ay taagan tahay. haddaba yaan hadalka ugu daalin qisada bal ila daawo. saxaabada nabiga markaa fiirisa waxay ku dhaqmeen quraanka iyo sunnada nabiga tarbiyada nabigana waa qaateen. bal fiiri Abu Talha Anas bin Malik wuxuu yiri ninka Abu Talha la yiraahdaa ansaarta Madiina degan ninka ugu xoolo badan ayuu ahaa. xoolahana wuxuu ugu jeclaa beeraha la yiraahdo oo ku taalay masaajidka nabiga ka soo horjeeday. rasuulka Allah ayaa beerta gali jiray wuxuuna ka cabi jiray biyo macaan oo ay leedahay. meel caan ah oo istiraatiijiyana waa ku taala. xoolihiisoo dhan ayuu ugu jeclaa. markay soo degtay aayadda Ilaahay uu ku yiri lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ma gaaraysaan khayrka iyo samafalka weyn ma gaaraysaan ilaa aad bixisaan oo wax ka bixisaan xoolaha aad jeceshihiin. aayadda markay soo degtay ayuu dhaqaajiyo nabiga u tagay sallallahu alayhi wasallam. wuxuu rasuulka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu soo dejiyay aayadan. xoolahaygana waxaan ugu jecelahay beertaas masaajidka ka soo horjeeda. waxaan rabaa inaan kuu sheego rasuulka Ilaahay innaha sadaqatun lillah. waa bixiya beertaas Ilaahay dartii baan ula baxay. arju birraha wa dhukhraha 'inda Allah. beertii uu beerihiisa ugu jeclaa ayuu bixiyay. yacni kalaamu Ilaahay soo dejiyay oo ahaa haddii aad sadaqa la baxaysaan la baxa xoolihiina xoolaha aad ugu jeceshihiin. maanta bal adigu waxa aad ugu jeceshahay waxaa laga yaabaa inaad haysto gaari, waxaa laga yaabaa inaad haysto jago, waxaa laga yaabaa inaad haysto guri. adigoo sadaqada halka $2 $2 waxaa bixinaya. bal ka war haddii aad isku daydo jagadaada ama guri aad leedaho hantiya inaad sadaqa u bixiso. ilamaha Soomaali in laga soo helayo balse laakiin waan rajeynaya inay dhacdo. wallaahi waan rajeynaya waan ku rajo weynaa. anigaygaaba ha noqotoba haddii aan xoolo yeesho ama aan hanti yeesho hantida aan ugu jecelahay dee tan ugu jecelahay yacni waa ta ugu badan, waa ta ugu weyn, waa ta ugu qaalisan inaan taa la baxo insha allahu tacaala. arju birraha wa dhukhraha 'inda Allah. birriga ay leedahay iyo kaydkeeda Ilaahay agtiisa ayaan geysanayaa oo ka rajaynaya. meel kale ka dooni maayo. kulligeed waa sadaqo waa la baxay. waa xoolihiisa wuxuu ugu jeclaa weyn. ee rasuulka Ilaahay meesha ay munaasab u tahay adigu dhig sida aarabti u qaybi taladeeda ayaan ku dhiyay buu yiri. markaas nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam bakhin calayhi salaatu wasalaam waa wax la yaabo oo cajiib ah arinka sabaysay dalika maalu raabih wa faa'ida ribixday oo faa'iidada laga helay xaqiiqo ay tahay Ilaahay agtiisana kuugu dhacday. maalinkaad ugu baahi badan tahay baan u baxsanaysaa. waa maalinkee yawma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata Allaha biqalbin saliim. maalka aan qiyaamo wax ku tarahayn waa midka halkaa uga tagtay. midka adigu yawma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata Allaha biqalbin saliim. laa ilaaha ila Allah. ilaa man ata Allaha biqalbin saliim. maalka aan qiyaamo wax ku tarahayn waa midka halkaa uga tagtay. midka adigu aad hormarsatay waa ku anfacaya xasanaadkiisa ayaa xagga ku yaala. bal Ilaahay baan kugu dhaarshay qiimee oo qiimeyso. maanta waxaad tabcatay xoolaha ugu badan. bilgeed muxuu faa'iido ku haya? horta waa gaalka halkaa naga dhig. adiga oo Soomaaliya ama Muslim ahba maanta waxaad tabcatay xoolo aad u fara badan. carruurtaada iska daa, kuwaad sii dhashay iska daa, kuwaas gooniba aakhiradooda loo xisaabinaya. shakhsiyaad bay kaa yihiin madax bannaan. jannada kuu soo shaqayn maayaan oo salaad kuu tukan maayaan odhan maayaan salaadan Ilaahay waxaan ugu talagalay aabbahaye aakhiro odhan maayaan. ma jirto goonidaadaa lagu xisaabinaya. kaba soo qaad maanta waa tabcatay xoolo badan baa tabcatay.
aayar baad dhimatay waayo geeridu marnaba ma ogin halka ay naga jirto waad dhimatay ama waad geeriyootay xoolahaagii adduunyada yaalay intay yimaadaan miyay odhanayn ilaahay annaga u shafeeco qaadin oo annaguna shaqaystay waa maya odhan maayaan wallay ka tag laa ilaaha ila allah laa xawla walaa quwata illa billah ila dhamaysta idinka raalliya laakiin yowmu alqiyaama laa yanfacu maalun walaa banuun waa maalka adigu waxa weeyaan aa halkaan oga tagatay oo aadan khayrka ku bixin kaas waxba kau tari maayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa guulaysatade masaakiinta qaraabada dadka qaraabadaada ah iyo ilma adeeryaasha iyo u qaybi marka lagama fogeyn xitaa lagama fogeyn ilma adeerada ilmaabti u qaybi nebiga calayhi salatu wasalaam kamaba fogeynba lamu doonan qabiil hebel iyo halkaa kale iyo kuwaasaa baahan iyo lamu doonan laa ilaaha ila allah kamay fog xitaa xoolihiisimaan kama fogaanba markaasuu qaybiyey maalkii beertii dhammayd waa qaybshay aalkiisuu qaybshay sidaas waxaa tusaale kuugu filan saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam siday u jeclaayeen inay amarka ilaahay iyo amarka nebigaba ay fuliyaan iyo siday ka gaareen deeqsinimada meesha ay ka gaareen alimaam ibnulqayim wuxuu yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa adduunyada wuxuu ugu jeclaa waxa uu bixiyo uu sadaqaysto bal wuxuu yidhi wakaana suruuruhu intaa iga raalihada dad ugu barjaay soomaali haddaynu nahay maanta wallaahi runta marka laga hadlayo qof kastaa wuxuu jecel yahay in wax la siiyo nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa adduunka ugu jeclaa inuu isagu wax bixiyo bal halkaynu kala taaganahay eega way jiraan qof jecel inuu wax bixiyo oo ilaahay wuxuu dhiibay laakiin badankeenu anu mar walba waxaan ka hadlayaa de yani intaaynu badannahay waayo waan aaminsanahay inaanay dadku isku wada mid ahayn isku sina waan ahayn laga yaaba adigaagana daawanaya inaad waxaan sheegayo dhan baad ka wada duwan tahay aad ceeb ka siliin tahay ood adigu tahay pure dadkii ilaahay waxaan ku odhi jannada maasha allah laakiin badankeenu waxaynu u badannahay run ahaantii marka laga hadlo sidaas aynu u badannahay in qofka wax la siiyo wuxuu ka jecel yahay ma jirto bal wuxuu yidhi wakaana suruuruhu wa faraxuhu bima yucطiihi acdam min suruuri alaakhidi bima yaakuduhu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu bixinahayo qofka uu siinahayo sida nebigu ugu farxahayo inuu bixiyo wuxuu ka weynin badnaa midka qaadanaya farxadda uu ka farxahayo waxaa ka weyn kan bixinahayo nebiga calayhi salaatu wasalaam adiga waxaa laga yaabaa waxbaa bixinaysa laakiin qalbigaagu aad uguma faraxsana waa ka soo jaraysaa xoogaa waa dhibsanaysaa waa bixinaysaa laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka miskiinka ahoo wax la siinaya siduu u farxahayo si ka badan buu u farxahayay inuu wax sadaqaystay saxaabta qaaliga dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa fadlan inaynu iscaawino aynu isgargaarno bishii barakaysaneed bishii khayrka qabtay ayaa inoo soo foodle run ahaantii haddii aad xitaa igu taageertaan waxaan jeclaystay oo niyadeyda marar badan ka guuxaysay inaynu waqti aan geliyo oon isku hawlo oon tago oon dhaqaaqo magaalada hargeysa aan ka deganahay hargeysada aan deganahay magaalada hargeysa aan deganahay xaafado kamid a oo waxaa jira yani dad duruufaysan ay degan yihiin xaafadahaasoo kale intaan booqdo aan isku dayo weliba inaan raadiyo aan maxay ahayde aan isku dayno weliba inaan caawino taana anigu mar walba dee awood uma lihi balse laakiin dadka haddii aynu iskaashano awood u yeelana waa adiga iyo aniga horena waxaa loo yihi far kaliya fool ma dhaqdo waxaan idin leeyahay dhammaantiin muuqaalkan haddii ay ramadaan ku beegto waxaan jeclaystay in ramadaan ku beego ramadaan kariim ramadaan mubaarak baan idin leeyahay kulligiin sidoo kale maxay ahayde waxaan idinkaga tegayaa fadlan gabadhaayar aynu caawino fadlan gabadhaayar aad bay noogu baahan tahay waxaan idinka codsanayaa intayn caawin karna inaynu caawino dhammaantiin aad baad umahadsantihiin qof kastoo waxaad awoodo ku dir qof kastoo wixii si haddaad ilaahay ku shilin oo shilinka somaliland ka yeelay ku dir war xitaa haddii aad ka heshayso isku day inaad soo saadayso yacni sadaqay kuu tahy faa-iday kuu tahy wallaahi oo bilaahi oo tal anagus ma naqaano mana garanayo balse muuqaalkan baan arkay waxaanan jeclaystay sadaqa aan xitaa inay anigu noqoto faafinta aan faafinaya aan dad badan tusaya inay aniga sadaqa ii noqoto run ahaantiina waxaan jeclaystay inaad idinkuna sadaqadaas iyo khayrka aan idin xasuusiyo aada waxaad awoodaan inaad ku dirtaan dhammaantiin aad baan idin salaamaya
haddii aad muuqaalkan ku caajisteen aad baan idinka raali gelinaya si haddii aad ku faa-ideen waan idin wada jecelahay dhammaantiin inoo sheer gareeya muuqaalka oo waxaan aada idinka codsanaya muuqaalkan haddii aanad xitaa ku awoodin inaad u ducayso inaad lacag u hurto inaad wax kale u qabato fadlan muuqaalkaasuu dad badan u gaadho sii sheer garee oo whatsappkaaga dhig asxaabtaada whatsappka la wadaag oo muuqaalkan like noo saar si uu dad badan u gaadho intaasoo keliya xitaa aad kaga qayb qaadato ayaa khayra oo kugu filan ajar aad shaqaysatay dee ajaradu way kala awood badan waana kala weyn haddaad like saarto khayrka aad like saartay ajar yar baad ku leedahay haddii aad lacag uba dirtana ajarkeedaad leedahay weyn markaa runaantii waxaan kaa codsanaya san idinku soo gudbiyey inaad idinkuna dad badan usii gaadhsaan dhammaantiin aad baan jeclay ramadaan kariim fadlan kanaalka subscribe inoo saara